ka waran xaaskaaga oo 8 bilood uur ah kuusida uurkaasina uu yahay kii ugu horeeyay oo ah cunadkiina waliba aad inta isla soo jeegaraysaan isbitaalka soo ogaateen gabar iyo wiil aad ku faraxsan tihiin in bil kadib uu idin dhalan doono wiil adiga iyo xaaskaaga deedna waliba bisha lagu jiro ay tahay December 24keeda maalin kadibna aad u wada dabaaldegi doontaan Christmas Eve haddii adigoo markaasi aaday badda si aad u soo jalaabato waliba badda waa badda San Francisco California oo idin dhow marka aad soo laabato aad xaaskii guriga ka weyso waa tan ku dhacday Scott Peterson oo markii uu baxay kadibna uu soo laabtay asaga oo malaaygi uu soo jalaabtay wato waayay xaaskiisii waa sida uu asaga la wadaaga booliska maadaama markii uu waayay isla markiiba uu wacay booliska si uu u ogeysiiyo in ay jirto xaaskiisa in ay maqan tahay meel ay jirtana uusan ogeyn taleefankeedana uu dansan yahay qisadaasi ayaan isla wadaagaynaa daawadayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha sharafta leh oo na daawanayo waxaad naga daawanaysaan Shumac TV dhanka YouTube-ka iyo waliba Facebook-ga halka aad naga daawanaysaan barteena TikTok-ga Axmed Cusmaan Xasan aniguna waa Axmed Deeqsi daawadayaal soo dhawaada gabadhan magaceeda aan idin sheegay oo la waayay ayaa waxaa la oran jiray magaceeda ama la dhihi jiray sida aad u taqaanidba Lucy Peterson. Lucy waxay ahayd ahaan 27 jir ama 27 jir sida aad u taqaaniinba waxa ayna markaasi lahayd uur 8 bilood ah ninkeeda ayaana markaasi waxa uu booliska la wadaagay in xaaskiisa ay ka maqan tahay guriga booliskii ayaana markaasi waxa ay bilaabeen in ay raadiyaan taariikhdu waa 24ka December 2002 waxaa laga joogaa xilli fara badan waliba kiiskani waxa uu noqday mid markaasi aad isaga dawareego oo ilaa waxa uu soo gaaray November 2020 balse ugu dambeyn waa la xaliyay xaliskaasi ayaana markaasi sheekadan in kula wadaagi doona sida loo xaliyay iyo qofka markaasi naqday dilaaga daawadayaal Scott Peterson waxa uu ahaa mid markaasi dadka xaafadda la degan ay ku tilmaameen in uu ahaa nin wanaagsan xaaskiisana jecel wanaag iyo qiimana markaasi dadka xaafadda ay ku yaqiineen oo aanan weligiis dhibaato geysanin dhanka kale xaaska la waayay Lucy Peterson waxa ay ahayd gabar waxbaratay aqoontana markaasi ka dhisneed shaqo fiicanna haysatay uurkeeda ugu horeeyana u lahayd xaajigeeda Scott Peterson balse booliskii waxa ay markaasi shaki weyn ka qaadeen maadaama ay galeen in ay arrinkani soo raadiyaan dilaaga waxa ay markaasi shaki weyn ka qaadeen ninkeeda oo ahaa Scott Peterson booliska ayaana markaasi soo qabtay oo waxa ay keeneen qolka wareysiga markii ay wareysi la yeesheenna waxa ay markaasi ku jahwareereen hadaladiisa labacda ah oo kala hadalka ah oo marbasi hadalka ah waxa ayna markaasi go'aan ku gaareen inta kiiskan uu cadaanayo in ay markaasi hayaan xabsigana ay u taxaabaan waxa ay markaasi iska dawareegaanba waxaa la soo helay meydkii wiilka ee markaasi dhali rabtay Lucy Peterson oo ahaa unborn childigi qoloftiisii ama lafihiisii ama jirkiisa qaybo kamid ah oo markaasi yaalo magaalo la yiraahdo San Francisco oo ahayd magaalo xeebeed booliskii maalintaas marka taariikhda waxa ay naqanaysay 13 Abriil 2000 iyo waliba 3 isla 2003 isla Abriil balse 14keeda oo naqanaysay maalinka xigtana waxa ay heleen jirkii Lucy
Pearson. Booliska ayaa markaasi waxa ay heleen xog maadaama awal kiiska uu ahaa missing. Hadda waxaa la ogaan karaa haddii ay booliska baaritaan rasmi ah ay ku sameeyaan qofka ah dilaaga. Markii ay boodigii ku bilaabeen in ay baaraan, waxa ay markaasi ogaadeen dilaaga in uu yahay Scott Pearson. balse tan la yaabka naqanaysay oo booliska ay la yaabeen iyo weliba dadka dariska la ahaa Lucy Pearson ayaa waxa ay ahayd qaabka uu markaasi u soo bandhigayay ama booliska uu wacay ama uu hadlayay mar walba oo ka hadlayo xaaskiisa. Waxa uu sheegay jacaylka uu qabay, waxa uu sheegay farxadda, waxa uu markaasi booliska la wadaagayay alaabihii ay ugu tala galeen in ay markaasi ku dabaaldegaan oo u dabaaldegaan Christmas Eve-ka oo kaliya maalin ay ka dhineed maalintii la weynayay. Booliska ayaana waxa ay maxkamad soo saareen 2005 waxaana markaasi maxkamadda ay ku xukuntay Scott ilaa iyo inta uu ka geeriyoonayo in uu xabsiga ku jiro maadaama uu 2 qofood u geystay tacaddi dil ah. Marka dambe baarayaashii waxa ay ogaadeen qofka dilka geystay, waxa ay ogaadeen dadkii la dilay, balse waxa ay rabaan in ay ogaadaan sababta keentay dilka. Markaasi waxa ay bilaabeen in ay dad kale u soo qabtaan si ay markaasi ilaan qofka marka uu wax geysanayo waxaa jiro dad la og, waxaa jiro dad uu markaasi u sheekeynayo oo wax u sheegayo. Marka waxa ay bilaabeen investigation. Waxa ayna soo ogaadeen in Scott uu lahaa saaxiib ama gacaliso ama qof markaasi ay ku wada joogeen si markaasi wada noolaasho ah oo aan ogeyn in ninkani uu yahay xaas uur loo leeyahay weliba bil kadib loo dhali doono. Intaasoo dhan ma aysan ogeyn. Gabadhan waxaa la yidhahdaa Monfry. Gabadhaasi ayaa la wareystay oo la weydiiyey sida markaasi ay isku barteen ayada iyo Scott. Waxa ayna sheegtay in ay markaasi asiga iyo ayadaba ay meel ka wada shaqeynayeen ayna ka heshay qaabka macnaha uu u dhaqmo iyo wanaagiisa iyo falcelintiisa weliba dadka macnaha waxa ay wada degiin hal xaafada. Waxa ay la socotay in la xiray loona xiray xaastaasina waxa ay sheegtay in ay ku abuurtay cabsi iyo la yaab iyo walwal maadaama uusan u sheegin in uu xaas leeyahay balse uu u sheegay in uu mar xaas yeeshay xaaskiisana ay geeriyootay. Gabadha marka Lucy Pearson ahayd waalidiinteeda waxa ay sheegeen dhankooda in ay maxkamadda ka codsanayaan in ninkani gabdhooda dhibaatada uu u geystay mid la mid ah ay u geystaan sababtoo ah gabadhooda waxa ay sheegeen in ay ahayd mid innocent ah ninkeedana jecleed. Waxa ayna sheegeen in aysan marnaba ka filanaynin in markaasi Scott uu arrinta noocaas ku dhaqmi doono balse waxa ay dalbadeen in laga jaasiyo. Reerka markaasi Scott ayagana waxa ay la dhici waayeen ama ay ka heli waayeen maxkamadda xukunka ay ku xukuntay oo ahaa in ninkani ilaa uu ka geeriyoonayo xabsiga uu ku jiro balse waxa ay markaasi dalbadeen racfaan. Ugu dambeyn racfaanka loo soo ogolaaday ayaa waxa uu noqday in markaasi xukunka wax laga bedelo, xukunkiisana laga dhigo in ninkan odaga ah macnaha laga daayo ilaa uu ka geeriyoodo in xabsiga lagu haayo kaliya looga dhigo xabsi daa'im. Xabsi daa'inkana waxaa markaasi bannaan fursado haddii markaasi qofkan dhaqan wanaag iyo waxyaabo markaasi wanaagsan ay ku arkaan booliska xabsiga gudihiisa. Waxaa laga yaabaa in markaasi madaxweyne imaan doono haddii uu yimaado ay markaasi u fududaato in la sii daayo. Marka kiiskani waxa aan ka baran
karaynaa in macnaha dee wixii dhici rabo 1,000 sano ay kaawan yihiin sababtoo ah ninka markii la wareystay waxa uu sheegay ugu dambeyn sababta uu u dilay in ay ahayd in ay markaasi marar badan ay isku dhacaasina niyad ahaan uu asaga aaminay in asaga iyo ayadaba aysan ubad wada korsan karin saas darteed uu isdhaafiyo dhanka kale waxa uu sheegay in ay gabadhan manfaray ah ay wada socdeen uu doonayay in uu ku bedelo ayada dhanka kale gabadhan macnaha maaragtay life insurance-geeda haddii qofka uu dhinto lacagteeda waxaa markaasi dhaxlayay ninkan odaga ah ee iskaad marka waxa uu rabay in dhanna uu lacag ka helo aad u far badan maadaama xaaska uur ay leedahay haddii ay dhimato ayada iyo unugaba macnaha dee markaasi u noqonaysay lacag ahaan lacag aad uga fara badan marka ay qof kaliya dhimato sababta ugu weyn u sameeyeen waxay ahayd in asigii ayada aysan heshiis ahayn bilihii ugu dambeeyay isku dhacdooda iyo khilaafkoodana uu batay saas darteedna uu go'aan ku gaaray in uu ka takhaluso ugu dambeyn ninkan waxaa markaasi lagu xukumay xabsi daa'in gabadhaasina saas ayay markaasi nolosheeda ku ahaatay gabadhii manfuray ahaadna markaasi waa ay ka qaabamisay in nin khiyaanoola ah oo dilaa ah ay markaasi xiriir la wadaagtay intaan kulmi doono sheekadan sheeko lamid ah oo anigu Axmed Usmaan Xasan Axmed Deeqsi oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo